hoos u dhaca macdanta muhiimka ee loo yaqaano iron-ta waxaa ka dhalato nooc dhiig yari ah taas oo loo yaqaano iron deficiency anemia. haddaba guud ahaan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa hoos u dhaca macdanta muhiimka ee loo yaqaano iron-ta iyo sida loo saxo. inta aan u gudgalin muuqaalkan waxaan si gaar ah kaga codsanayaa inaad YouTube channelkeena subscribe noo saartaan, Facebook page-keena follow soo tiraadaan. haddii aad su'aal qabtaan qaybta hoos comment-iga nagu dhaaf, waa idin soo jawaabi doonaa insha Allah. haddaba maadada muhiimka ee loo yaqaan iron-ta waxay ka qayb qaadataa in la sameeyo borotiinka loo yaqaan hemoglobin. hemoglobin waxa uu jirka gaarsiiyaa ama wuxuu xambaaraa oksijiinta jirka oo unug kasta oo ka mid ah unugyada jirka waxa uu gaarsiiyaa oksijiin ku filan. haddaba hoos u dhaca maadadan loo yaqaan iron-ta waxaa ka dhalato nooc dhiig yari ah taas oo loo yaqaano iron deficiency anemia. haddaba markay hoos u dhacdo maadadan loo yaqaan iron-ta waxaa dhacaysa inuu hoos u dhaco borotiinka loo yaqaan hemoglobin. hemoglobin shaqadiisa waxay ahayd inuu jirka gaarsiiyo oksijiin. haddaba markii uu yaraado hemoglobinta waxaa imaanayso in jirka aan la gaarsiinin oksijiin ku filan. haddaba oksijiinta jirka wuxuu ka saacidaa in la sameeyo tamar ama energy in la sameeyo ayuu ka saacidaa. haddaba hoos u dhaco maadadan iron-ta waxaa ka dhalato inuu yaraado borotiinka loo yaqaano hemoglobin. hemoglobin haddii yaraatin waxaa yaraanayso oksijiinta jirka. ugu dambeyn marka uu oksijiinta yaraado qofka waxaa kasoo muuqanaya laba calaamadood. haddii uu guud ahaan jirka ku yaraado oksijiinta waxaa dhacayso inaan la sameynin tamar haddii aan la sameynina qofka waxaa lagu arkayaa daal fara badan oo qofka qaba anemiyada ama dhiig yarida inta badan waxaa lagu arkaa daal ayaa lagu arkaa. calaamada ugu caansan ee lagu arko dadka qaba dhiig yarida waa inay dareemaan naqas ama neefta oo dhibto. dhanka kale calaamadaha kale ee lagu arki karo qofka qabo dhiig yarida nooca loo yaqaan iron deficiency anemia waxaa ka mid ah inuu qofka lagu arko qarqaryo, daciifnimo ayaa ka mid ah. sidoo kale waxaa lagu arkaa wareer. dadka qabo nooca anemiyada ee loo yaqaano iron deficiency anemia calaamadaha kale ee lagu arko waxaa ka mid ah inay cunaan waxyaabo aan cuno ahayn. inta badan waxaa la arkaa dadka qaar markay ku dhacdo anemiyada noocan inay cunaan waxyaabo aan cuno ahayn, tusaale ahaan inay cunaan biraha. sidoo kale waxaa la arkaa inay cunaan dhuxusha. haddaba dumarka uurka leh inta badan qaarkood waxaa lagu arkaa inay cunaan dhuxusha, taasna waxaa inta badan sababo hoos u dhaco maadada muhiimka ee loo yaqaano iron. haddaba maxaa sababo inay hoos u dhacdo macdanta muhiimka ee loo yaqaano iron-ta? waxa ugu badan ee sababo inay hoos u dhacdo macdantan muhiimka ee loo yaqaan iron-ta waa dhiigbaxa. dhiigbaxa jirka bini'aadamku wuxuu ugu dhici karaa siyaabo kala duwan ama qaabab kala duwan ayuu ugu dhici karaa. tusaale ahaan dhiigbaxa wuxuu ka dhici karaa dheefshiidka ayuu ka dhici karaa. haddaba waxyaabaha sababo inuu dheefshiidka ku yimaado dhiigbaxa waxaa ka mid ah in dheefshiidka ay kasoo baxdo boog. waxyaabaha sababi karo inuu dheefshiidka ku yimaado dhiigbaxa waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee kansarada. sidoo kale dhiigbaxa qaababka kale oo ku imaan kara waxaa ka mid ah inuu qofka ka dhiig baxo kaadi heesta. sidoo kale inay iron-ta hoos u dhacdo waxaa sababi karo dhiigbaxa xad-dhaafka ee xilliga caadada ku yimaado dumarka wuxuu sababi karaa inay timaado hoos u dhaca macdantan muhiimka ee loo yaqaan iron-ta. waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyaabaha dabiiciga ah ee aad gurigaaga ku samaysan karto si aad u xaliso hoos u dhaca macdantan muhiimka ee loo yaqaan iron-ta. waxaa ka mid ah cabitaan laga sameeyey dhirta loo yaqaano ama miraha loo yaqaano beedka, tufaaxa iyo malabka. haddaba saddexdaas haddaad isku darsato waxaad ka helaysaa xaddi aad u badan oo ah maadada loo yaqaan iron-ta, macdanta muhiimka ee loo yaqaano potassium iyo maadada dheefshiidka muhiimka ee loo yaqaano fiberka. haddaba sidee u samaysanaysaa marka cabitaankaas? marka hore waxaad soo qaadanaysaa hal koob cabitaan ah oo maadada beedka ah. sidoo kale waxaad ku daraysaa hal koob oo cabitaan ah oo ka samaysan tufaaxa. sidoo kale waxaad ku daraysaa hal qaando oo malab ayaad ku daraysaa. maalinkii waxaad isticmaalaysaa 2 mar. haddaba qaabka labaad ee lagu sixi karo xaaladan waa inaad isticmaasho sisinta. sisinta waxaa wanaagsan gaar ahaan nooca madow ayaa wanaagsan oo waxaa laga helayaa xaddi aad u badan oo ah maadada iron-ta. haddaba sidee u samaynaysaa marka sisinta? marka hore waxaa wanaagsan inaad soo qaadato sisinta madow ayaa wanaagsan. kadib waa dhaqaysaa. markaa dhaqdo kadib
waxaad ku qasaysaa biyo ayaa ku qasaysaa 2 sac ayaa sugaysaa 2 sac kadib waxaad shiidaysaa sisinta kaligeed ayaad shiidaysaa oo wax biyo ah ma ku daraysid inta kadib waxaad ku daraysaa hal qaando oo malab ayaa ku daraysaa kadib waad cunaysaa oo wax biyo ah ma ku daraysid maqaabka saddexaad ee aad ku daaweyn karto dhiig yarida noocan ah waa inaad isticmaasho koostada waxaa ka buuxo xaddi aad u badan oo ah maadada loo yaqaan iron sidoo kale waxaa ka buuxdo maadada loo yaqaan folate ayaa ka buuxdo sidoo kale koostada waxaa laga helaa xaddi aad u badan oo ah vitamin C oo door muhiim ah ka ciyaaro in la sameeyo unugyada cas ee dhiiga